بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal waa mar kale iyo akhrintii buugii loogu magac daray 4000 Essential English Words. waxaan ku guda jirnaa markaasi buugii labaad ayaan ku guda jirnaa. waxaan ka bilaabi doonaa maanta Allah subxaanahu wa ta'ala hadduu raali ka noqdo cutubka 14aad. alaaba cutub walba waxaan ku baranaa 20 eray. 20ka eray waxa uu heliyo sheekadaasoo lagu soo dhex lifaaqay 20ka eray aan baranay. alla weyna hadduu raali ka noqdo intaas wada dhameysan doonaa maanta. ereyga ugu horeeya cashirka markaasi cutubka 14aad page-kiisa 87 waxa weeye apparent waa waadax ah ama muuqda. shay waadax ah muuqdo loo wada jeedo oo cad ayaa waxaa la yiraahdaa apparent. qeexitaanku waxaa leeyahay if something haddii shay is apparent uu yahay mid waadax ah muuqda loo jeedo, it is easy waxaa fudud to see in la arkaa. tusaale waxaa leeyahay her happiness farxadda ka muuqata iyadoo waxay aad apparent mid waadax ah from the smile misne qosolkii ka imaana on her face wejigeeda qosolkeeda wuxuu cadeynayaa oo markaasi mid waadax uu ka dhigayaa markaasi farxadda gabadha. ereyga xiga waxaa blind waa camool indhoole. qeexitaanku waxaa leeyahay when people markii qof are blind u yahay markaasi camool ama indhool u yahay dee qofkaasi can't see waxba ma arki karo. tusaale waxaa leeyahay markaasi the blind man ninkii camoola ah didn't see waxba ma arka the whole the blind man ninkii camoola ah did not see muusan u jeedin ama muusan arkaynin the whole godkii and almost fell in wuuna ku dhacay ay leeyihiin inta badanaa. calculate xisaabin waay. calculate waa xisaabin. qeexitaanku waxaa leeyahay to calculate inaa xisaabisto is to found waa inay hesho an answer jawaabtii using adoo isticmaalayo math xisaab adoo isticmaalayo. ereyga macnaha tusaalihiis waxaa waaye I calculated waxaan xisaabiyey how much inta tiro money lacag ah I would need aan u baahanahay to buy inaad ku iibsado a car gaariga. ereyga xiga waxaa waaye chat sheeko halkan ugu jirta ama la hadlid. to chat waxaa la yiri inaad la sheekaysto ama la hadlayso to talk with someone inaad qof la hadashaa. qeexitaanku waxaa leeyahay even thought xitaa waxay ku fikreen dee iyagu were far but haddii kala fikiryihiin xataa aan ku soo celiya halkaas even thought xitaa way iska fikiri jireen dee iyagu were far apart ayagu kala fog xataa way iska fikiri jireeno. the couple lamaanihii chatted way ku sheekaysteen ama way sheekaysan jireen every day maalin waliba way sheekaysan jireen. commit waa ballanqaadid inaad samayso shay ayaa waxaa la yiraahdaa commit. qeexitaanku waxaa leeyahay to commit inaad ballanqaado shay inaad samayso to someone maxaa leeyahay to commit ballanqaadida to someone waa shay is to promise aad ballanqaadaa to do it inaad samaynayso. tusaale waxaa leeyahay third ninka la yiraahdo wanted wuxuu rabay to go home inuu aado guriga but laakiin he isaga had committed wuxuu ballanqaaday to finish inuu dhammeeyo the job shaqada. compose waa ka samayn. qeexitaanku waxaa leeyahay to compose inaad ka samaysaa something shay is to make it waa inaad ka dhigtaa shaygaasi from smaller parts qayb inaad ka dhigta ay waaye markaasi. tusaale waxaa leeyahay marka Tonya gabadha la yiraahdo composed waxay ka samaysay her report warbixinteeda waxay ka samaysay ama ay samaysay using ayadoo isticmaalayso many sources ilooyin badan of information warbixin ah. ereyga xiga waxaa waaye dormitory waxaa waaye markaasi waa qol ama iskuul dhismo waay kaasoo loogu talagalay ardayda inay ku noolaadaan cunadooda jiifkooda jimicsigooda wax alla waxay u baahdaan halkaas inay ka helaan meel loogu talagalay ayaa dormitory la yiraahdaa. dormitory waxaa leeyahay school building waa dhismo iskuul waaye where halkaasoo students ardaydu life ay ku nool yihiin. qeexitaanka tusaale waxaa leeyahay markaas I will move waxaan u guuri doonaa into the dormitory
iskuulka dormitoryga ah oo markaas jiif kale ayaan u guuri doonaa at the beginning bilowga of the school year sanad dugsiyeedka bilowgiisa ayaan u guuri doonaa. ereyga xiga waxa waa exhaust macnaheedu waxa waaye daalin, aad isdaalinayso adiga ama qof kale inuu ku daali ayaa exhaust la yiraahdaa. exhaust is daalin waaye ama daalin. qeexitaanku waxa waa to exhaust someone, inaad qof daalisa is to make them, waa inaad ka dhigtaa qofka tired mid daalan. tusaale waxaa leeyahay John ninka liida exhausted wuxuu daaliyay himself, isaa isdaaliyay by swimming all day, maalinta oo dhan ayuu dabaalanay. ereyga xiga waxa waaye greenhouse waa guriga cagaaran, waa meel loogu talagalay in lagu beero oo kaliya dhir. greenhouse ay la yiraahdaa marka waa guriga cagaaran. waa greenhouse-ka is a small grass building, waa dhismo markaasi coos ama cagaar ah taasoo is used loo isticmaalo to grow in lagu beero plants dhirta ama dhirta ay kasoo baxdo ama lagu beero meel loogu talagalay. tusaale waxaa leeyahay we have a small greenhouse, waxaan leenahay markaasi meel yar ama qol yar oo markaasi greenhouse la yiraahdo in our ku taala backyard, guriga markaasi gurigeena gadaashiisa ku taala ayaan leenahay where halkaasoo we grow aan ku beerno plants dhir ama dhir ay nooga soo baxdo. ereyga xiga waa ignore waa iska indhatirad waaye. to ignore inaad iska indhatirtaa something shay is to act, waa inaad markaas matashaa like you do not see, inaadan u jeedin shaygaas or hear it misna aadan maqlooynin. tusaale waxaa leeyahay magta I ignored, waxaa iska indhatiray the message fariintii he was making oo isaga sameynayay and kept studying, waana waxbaan sii baranayay. fariintuu isaga sameynayay waana iska indhatiro waxbarashadeeda ayaan sii watay ayaa leeyahay. waxaan u gudbaynaa pageka 87. pageka 87 pagekan 87 ereyga ugu horeeya waxa waaye obvious waaye, waadax ah ama muuqdo loo wada jeedo. erey waxaa jiray pageka hore aan kusoo baranay oo ahaa apparent oo waadax ah muuqda. isiga ereygan waxa waaye obvious, iska cad, wax cad muuqda, waa isku macno laakiin wax yar ayay ku kala gedisan yihiin. tusaale ereygan markii la yiraahdo obviouska wax iska cadka waxaa lala jeedaa waa shay aad arki karto misna aad ogaan karto shaygan inuu sax yahay, shay saxan uu yahay ama shay la aamini karo uu yahay ayaa waxaa la dhihi karaa obvious waa. tusaale shimbirtu way duushaa maalin walba, taasi shakikaaga ma jiro, wax iska cad waaye, obvious waaye, waadna og tahay. taasoo kale obvious aa la dhihi karaa. ereyga apparent waa shay aad u jeedo, aad arki karto misna kuula muuqdo wax sax ah balse aan ahayn sax ayaa waxaa la dhihi karaa apparent. inta soo fahanaa filaa apparent aan kasoo qaadanaysa. tusaale shimbirooyinka oo dhan waa duuli karanaya lagu yiri, apparent waa taas wax iska cad waa, laakiin waxaa meesha ku duugan shimbiraha qaar inaysan duuli karin. shimbirooyinkaas waxaa soo galaya dooradoo kale soo galay, doorada bahar shimbirahay ka tirsan tahay. sidaasoo kale waaye apparent iyo obvious, inta saas lagu kala qaldaa. marka waxa obvious aan kugu jirnay qeexitaanku waxa leeyahay if something haddii obvious uu yahay mid iska cad waadax ah, it's clear waa mid markaas loo wada jeedo easy simple si loo arki karo. tusaale waxaa leeyahay markaas it was obvious oo iska cadday that markaas he was tired inuu daalay, he kept falling asleep misna markaasi hurdoonayo iska caddahay. physics ereyga wuxuu waa physics waa cilmiga physics waa science waa cilmi taasoo deals with ku tacalluqa
with the energy tamarta and how iyo sida markaas tamartaasi it affects ay u saameyso things waxyaabaha ay u saameyso. tusaale waxaa leeyahay inay physics kala fasalkeena physics we use it waxaan ku baranay Newton's cradle barbilowga Newton to learn and ku baranayna about energy tamarta aan ku baranayna. erayga waxa portion waa qeyb portion ama gobol taas la yiraahdo gobol ama qeyb. sambuuska saddex dhinac ayuu leeyahay, dhinac kamid ah wuxuu noqonaa portion qeyb ayuu noqonaa. marka portion sidaas aan leenahay a portion gobol ama qeyb markaasi of something a shay is a part of it waa qeyb shaygaasi kamid ah waa. tusaale waxaa leeyahay aniga only 8 waxaan cunay oo kaliya small portion gobol ayaan ka cunay of a pizza moofada pizza la yiraahdo gobol ayaan ka cunay. erayga waxa remained xasuusin remained remember laba eray waa. remember waa inaad shay adiga aad xasuusataa ayaa remember la yiraahdaa. remained inaad shay oo qof ku xasuusiyaa ama shay inuu shay kale ku soo xasuusiyaan remained waa xasuusin waa. to remind inaad xasuusataa someone qof is to tell waa inaad u sheegtaa them qofkaas to remember inaad xasuusta to do inuu sameeyo something shay. Nick's dad Nicky abihiis reminded wuxuu xasuusiyay him isiga to do inuu sameeyo his homework shaqo gurigii inuu sameeyo ayaa la xasuusiyay ninka Nick la yiraahdo abihiisaan xasuusiyay. secretary waa xoghaye qof inta badana xafiiska markaasi company-ga joogo ama school xafiiskiisa joogo ama dawlad xafiiskeeda fadhiyo ayaa secretary xoghaye la yiraahdaa. xogta yani iskuulaadka xogta shaqaalahaasi xogta yani xog walbo qofkaas waa laga helaa oo meesha uu ka shaqeeyo ku saabsan. sababta loogu helaa waxa waaye inta badana isiga ayaa wax walbo iskuulkaasi oo markaasi ka dhacay iskuulka ama dawladdaas sameynayso ama shirkadaas sameynayso wuxuu noqonayaa qofka ay soo marto oo warbixin iyo xog iyo wax ka hela ayuu noqonayaa. waxaa leeyahay markaas secretary xoghayaha is a person oo qof kaasoo works ka shaqeeya an office xafiis ayuu ka shaqeeyaa. Rubisa gabadhii asked waxay weydiisay her secretary xoghaynteeda to tape inuu u qoro report warbixin. Safar waa aad u daran waa erayga xiga waa Safia aad u daran. if something hadii shay Safia oo aad u daran it's bad waa mid markaas aad xun oo serious daran. and so after hitting his hand with the hammer kadib markuu gacanta isaga dhuftay buriska some nuclear was in a severe pain wuxuu markaasi haya xanuun aad u daran ayaa haya. markaasi talent talent waa karti ama xirfad dabiici ayaa waxa la yiraahdaa talent. inta badan tusaale xirfadan dabiici waa qof wuxuu ku dhashay waayo oo Allah subhanahu wa ta'ala oo go'no u siiyo. dad ayaa waxa arkaysa jirkooda inta badan la laabmaayo. qof waxa arkaysa carabkiisa in si uu dheer u jiidi kara. qof waxa arkaysa inuu san badaalin haduu si walba u ordo. qof waxa arkaysa markaasi adduunka dhan ugu dheeriya la yiraahdo. qof walba waa si markaasi Allah subhanahu wa ta'ala bixiyo wax bixiyo waaye. qof oo iska dhigi karma qof waxa waaye waa wuxuu ku fiican yahay lagu dhaca meel hebel ku fiican yahay. qof bal meesha uu ku fiican yahay ayaa talent la yiraahdaa. marka talentiga inta badan qof waxa jira talentigaas markuu isku arko oo si hormariyo qofkaas oo kale talentigiisa wuxuu gaaraa markaas xirfadaas inuu meel sare ka gaaro lagu amaano adduun weynaha oo kale ku amaanaan ay gaaraysa. talentiga marka waxa muhiim ah qofka inuu ogaado maxaad horta xirfad dabiici aad leedahay adiga ma ogtahay xirfadaada meesha ay jirto ma ogtahay meeshaad xirfadaada talentigaada u yamaan meel kale hadii aad jirto bal suurada talentigaada raadi saa oo kugu fududaato. marka talent waa karti ama xirfad waa dabiici. if someone hadii qof has uu leeyahay talent xirfad dabiici ah they qofkaas are naturally si dabiici ah able wuxuu able to do inuu sameeyo shaygaas it well si fiican uu sameeyo.
tusaalaha waxaa leeyahay markaasi Maria gabadha la yiraahdo Maria waxay leedahay talent xirfad dabiici ayay leedahay ama karti waxay u leedahay for playing inay markaasi tunto the piano inay tunto ay garaacdo ay waxay u leedahay xirfad u leedahay. ereyga xiga waxa waaye thesis waa aragti oo ma jirto halkaan booga teesaha ee markaas qofka qalin jibinayo oo diyaariyo jaamacadaha ka qalin jibinayo oo diyaar uma jirto halkaan waxay ugu jirtaa markaas aragti. cashirka kasii horeyn waxaan ku sheegnay ereyda qaar macnaha la reebs adiga ma yeelan doonaan macno ka gedisan ayuu la yeelan doonaa buugani macnaha saxda uu ku bixinayo oo ereygaas uu saarayo ayaan saari doonaa insha Allah kama weecan doono. teeska marka qeexitaanka waxaa leeyahay tees aragtida is an idea waa fikrad taasoo needs loo baahan to be proved in la caddeeyo. waxaa leeyahay markaasi tusaalaha she did not support iyadoo maysan taageerin her thesis aragtideeda very well si fiican maysan u taageerin. she did not support iyadoo maysan taageerin gabadhaani maysan taageerin her gabadha thesis aragtideeda maysan taageerin very well si wanaagsan maysan u taageerin aragtida gabadha ay soo jeedisay gabadhaan si fiican maysan u taageerin. ereyga xiga waxaa waa uniform macnahaan waa isku mid ama daris isku mid ah ama markaasi kab isku mid ah adee daris waa inta badan daris ayaa loo isticmaalaa. uniform waa isku mid. uniform waxaa leeyahay is a piece of cloth waa markaasi qeyb ama gobol dhar ah worn by ay xirtaan markaasi people dadka ay xirtaan of the same group oo markaas isku mid ah dad isku mid ah macna hal iskuul arday wada dhiganaysa iskuulaadka qaar yani dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo kale iskuulkaas hal iskuul waxaa jirta markaas dugsiga sare wuxuu tahay uniform gooni dugsiga dhexe dugsi waxyaabahaas u tahay iskuulaadka qaar laakiin iskuulaadka hadda iyo markaasi iyo dugsiga sare iyo qaybta dugsiga dhexe dhammaan wasaaradda waxbarashada waa ay mideysay dugsiyada hoose dhexe waxaa loogu dugsiga dhexe oo hoose waxaa loogu talagalay dhar buluug ah gabdhaha xijaab iyo cabaayad buluug waaye markaasi wiilasha waa surwaal oo buluug iyo markaas shaati cadaan waa dharkaas buluuga loogu talagalay dugsiga hoose. dugsiga dhexe waxay ugu talagashay markaasi wasaaradda waxbarashada dhar jaallo ay ugu talagashay markaas shaati surwaal jaallo iyo shaati cadaan ah si lamid gabdhahan waa xijaab markaasi jaallo iyo markaas cabaayad jaallo iyo masar jaalle taas ugu talagashay. dugsiga sarena waa dhar cadeys waa dhammaan markaasi waayaha markaas waxaan kasii gudbaynaa waxaan leeyahay markaas tusaale aan gudbaynaa all the members dhammaan xubnaha of our margin band kooxdeena markaasi gaardiska ah weer waxay xirjeen margin uniforms markaasi dhar isku mid ah ayay xirteen ama isku wada eg ayay xirteen leeyahay. vision ereyga ugu dambeeya waxaa vision waa aragti hadaan waxaa leeyahay vision aragtida is an act waa markaas inaad iska dhigto of scene markaasi muuqaaleed. vision aragtida is the act waa jilin of scene aragti. the eye tusaale waxaa leeyahay the eye doctor dhakhtarkii ilka markaasi indhuhu tested wuxuu markaas tijaabiyey my vision aragayga. waxaa ku xiga markaasi pagekan 87 waxaa ku xiga page 88 iyo page 89 ayaa ku xiga oo su'aalaha waxaa la rabaa ardayda inay soo xaliyaan insha Allah. page waxaan u gudbaynaa 9aad page 9aad waxaa noogu diyaarsan sheekadaasoo loogu soo dhexlifaaqay 20 erey hadda aan soo baranay taasoo looga dul leeyahay markaasi in aan fahanno 20 erey. sheekada waxaa loogu magac daray the good student ardaygii wanaagsanaa. sheekada waxay ku bilaabanaysaa suu ereygani suu hadda halkan wuxuu ugu jiraa qof magacii ayuu halkan ugu jiraa. horay waxaan usoo aragnay ereygani suu ayaan usoo aragnay waxaan kusoo aragnay pageka 75 ee cashirkeenii cutubkeenii 12 ayaan kusoo aragnay
suu marka waxaan ku macneynay in uu yahay markaasi dacwad, laakiin hadda halkan dacwo uguma jirtee waa gabar magaceed ayaa suu la yiraahdaa. halkan magac waa marka suu gabadhi la yiraahdaa left waxay ka tagtay her dormitory iskuulkeedii ama qolkeedii oo jiifka ee iskuulka ay ka tagtay early xili hore that morning subaxaasi. She had even washed waxay dhaqatay intaysan soo bixin her uniform dharkeedii iskuulka ayay dhaqatay the night before, habeen ka hor ayayba sii dhaqatayba. She wanted waxay rabtay to look inuu u ekaado nice mid wanaagsan for the day maalinta waxay rabtay inuu ahaado maalin u fiican, sababtoo ah maalin aad isku diyaarisay aad isku hawshay inuu wanaagsanaato. alla subxaana watacaala hadduu kula garab galo oo ku wanaagsanaana. sababtoo uniformkeedii markaas dhaqatay, dharkeedii si diyaarsatay, way feeraysatay, cadigaadii ku rumaysaleed waa sii dhigatay, kabaha waa baarishay. subaxii macnaha waxaad diyaar u tahay maalintaas inaad la falgasho. laakiin qof hadduusan markaasi uniformkii u diyaarsaneenoo kabii u diyaarsaneenoo isaga dhan uu yahay mid meth ah isku dhex yaacsan, subaxii waagi markuu ku beriib waxaa kuu bilaabanayo maalin jahwareera kuu bilaabanayo. marka si gabadhi la yiraahdo was committed waxay ballan qaaday to learning inay wax barato, waxbarasho ayay ballan qaaday iyada. and she had talent waxay leed markaasi xirfad for getting good grades inay la timaado markaasi grade fiican inay la timaado ayay waxay ku lahayd talent ku lahayd. in fact xaqiiqdii si gabadhi la yiraahdo did not sleep much, in badan maysan hurda jirin. she composed waxay soo keentay a paper warqad and found it waxayna heshay the perfect thesis aragti fiican ayay heshay about ku saabsan the importance muhiimada elada of a greenhouse qol cagaaran ama meelaha lagu beero waxyaabaha cagaarka ah in la helo muhiimada ay leedahay ayay heshay. she also xitaa studied waxay baratay for her physicskeedii ayay baratay, test imtixaankeedii physicska way baratay. si gabriel was already tired way badaashaybo idaalantay imtixaankii physicska diyaarisay waxay isku hawshay inay ahamiyad ay leedahay ay ka qorto markaasi meelaha cagaaran oo xaafadaha laga dhex sameeyo. intaas markay taagan tahay waa idaashay. during inta loo guda jiray the test imtixaankii physics ay u galeysay inta loo guda jiray she calculated waxay xisaabisay her answer jawaabeeda ay xisaabisay. soon durbadiiba she felt waxay dareentay siig xanuun. her face wajigeeda got hot wuxuu noqday mid kululaada and her vision markaasi arageedana began wuxuu bilaabo to blur inuu mugdi uu noqdo ama tashwiish uu ku furmo ayuu markaasi bilaabay argem. she was blind for a moment, cabaar ay waxay ahayd amool indhool ayay noqotay. the teacher macalinkii so ayaa arkay markaasi suwas apparent sickness jirodii markaasi gabadha liida sus oo waadax ah ayuu arkay. apparent hadda waxaa loo isticmaalay wax aanan la ogaa karin markaasi inay sax yihiin inay qalad yihiin laakiin muuqdo ayaa loo isticmaalay. haddii oo tusaale la isticmaala obvious wuxuu noqonayaa mid sax ah qofka inuu xanuunsan yahay. ma yahay he wanted wuxuu rabay to send inuu u diro her iyo to the nurse kalkaalisan ku u diro ayuu yiri, but laakiin she wouldn't go maysan bixiyada. she gabriel still had a portion waxa u dhinay gobol of the test imtixaanka to finish inay dhamaysa laga rabay. after that intaas kadib she gabriel went to the nurse intaas markii imtixaanka ay dhamaysatay kadib ay waxay aaday kalkaalisada. after seeing markay aragtay the secretary xogayntii markay is arkeen she waited way sugtay. a few minutes later waxyar kadibna ama daqiiqadii kadib the nurse kalkaalisadii came in ayaa soo gashay with the glass fasalkii of a juice and told Sue ayada markaasi casiir ama cabitaan gacanta ku wada ayay soo gashay and told waxna u sheegtay Sue gabrielida iyado needed inay rabaan tujaad inay la sheekaystaan si uu adan kula sheekaysanina ayay dhahday. sheekadii u bilowday waxay tiri it's obvious iska cadahay that imankaasi you have exhausted inaad daalisay yourself nafsadaada waa kala taaliyiri waan iska cadahay inaad nafsadaada the nurse said kalkalsidii intaas tiri haye
if you keep working so hard, haddii aad sidaani daran a usii shaqayso, it could have severe result. waxaa ka dhalan doonta natiijooyin markaas xun ayaa ka dhalan doonta, ayay tiri. My parents, waalidiinteyda ayay tiri gabadhii, tell me waxay ii sheegeen dad markaas all time waqtiga idin ayaa intaas ii sheegay, ayay tiri. I guess waxaana qiyaashaha I shouldn't ignore them, inaanan iska intirin. Sure intaas tiri. You have to remind yourself, waa inaad lafsadaada xasuusisaa. It's okay inay tahay wax fiican to rest, inaad nashato. The nurse said, kalkaalsadii intaas tiri. When markii Sue gabadhii leedahay got back ay kusoo noqotay to her room, qolkeedii markay kusoo noqotay, she went right to bed. waxay toos ah u aaday mise xagaag u aaday sariirta ayuu aaday. She made waxay samaysay sure xaqiiqdii she good enough. waxay heshay markay si xaqiiq ay u samaysay arinkii she good enough. waxay heshay rest, nasiino ku filan ayay heshay. Night after that, habeenkaasi kadib waxay heshay nasiino ku filan ayay heshay. billahi tawfiiq, halkaasaan kusoo gabagabeynayna. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin.